Audio Jungle. madaxweyne ku sheega waxaa loogu yeedho kilalka Tigreega ahna gudoomiyaha TPLF Abay Waldo ayaa dhalinyarada qoomiyadda Tigreega ku baraarujiyay khatar ku soo fool leh TPLF isaga oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaa jirta khatar u baahan in aad fadhiga ka kacdaan wuxuuna ku baaqay in ay guluf dagaal dhalinyarada qoomiyadda Tigreegu ku qaadaan qoomiyadaha kacdoonka wada waa inaynaan ilaawin aabbayaasheen iyo walaalaheen iyo hooyooyinkeen sida aan kala sooca lahaynay u daadiyeen una xasuuqeen dadkeennii sidaasi waxaa yidhi Abay Waldo madaxweynaha ku sheega TPLF isagoo sii wata hadalkiisii Abay Waldo waa midda annaga TPLF ahaan duurka u galay dadkeennana markay xasuuqeen dhulkooda nabad xasilooni iyo barwaaqa ayaa ka jirtay hadalkan ayaa waxa uu si toos ah ugu socdaa qoomiyadaha Amxaarada oo kamid ah qoomiyadaha kacdoonka ka wada oo Tigreega xilligii taliska Mengistu xasuuqay Abay Waldo ayaa yidhi hadda waxay nagu soo kordhay awood iskaashanaysa oo ay hormood ka tahay dawladda Masar iyo qoomiyadaha la xulafada ah oo u midoobay in ay Tigreeg mar labaad la xasuuqo lagana tirtiro adduunka waxaana loo baahan yahay awoodda xulafadaasi sidaan fiilada u xiriirsan dhaxda uga jari lahayn taasina waxaa la rabaa in ay mas'uuliyadeeda qaataan annaga TPLF ahaan xilligii sidiina dhalinta ahayn oo aanu xoog lahayn wax walba gacmahanaga ayaanu kaga hortagi jiray waxaana idinka rajaynaynaa in aad raacdaan wadadii aabbayowgeen waxay rabtaa Masar in ay hooyooyinkiin in ay ilmaha afka ku qaataan horumarka nabadda iyo barwaaqada Tigreega ka jirtana meel bannaan la istaajiyo wadamada dariskana aad u qaxdaan taariikhda 25 sano ee ugu dambeeyay ee Tigreega ee wanaagsanaana laga tirtiro Ethiopia dhulka Tigreegana la qabsado ayuu yidhi Abay Waldo oo hadalkiisa sii wata haddii aydan hurdada ka kicin dhalinyarada Tigreegu waxaa inagu habsan doontaa khatar ina dul heehaabaysa ee ah qoomiyadaha kacdoonka isku dhiidhiibaya waana khatar aan la dhayalsan karin weli intaynu hadlayno fursad baynu haysanaa xaaladaha waddanku ku jiro waa mid khatarteeda leh waana ka waraysan dhulka Amxaarada dadkeennii Tigreega in hantidoodii la dhacay oo ay noqdeen dad la bartilmaameedsanayo oo la xasuuqayo intii ay dawladdu soo badbaadisay mooyeen sidaasna waxaa yidhi Abay Waldo khudbadii uu ka horjeedinayay dhalinyarada Tigreega kacdoonkan ku sii fidaya waddankaasi maalinba maalinta ka dambaysa waxay sababi doonaan fatahaado ba'an oo ina soo gaari doona oo aynaan maarayn karin hogaamiyihii aragtida dheeraa ee Malla Zinaawi wuxuu inooga tagay erey markuu xalku sidan inoogu noqdo isku badbaadin karo kaasi oo ahaa waynu guulaysan haddii ay inaga go'an tahay in aan guulaysano